الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت كدب وحان ليهي رمضان كريم مد مسلم كا صومالي أمريكا سيجوغان وحان ليهي رمضان كريم وحايدين رجينا يا kuwii ramadaankooda ku dhamaysta insha allahu tacaala oo ku bilowda andhaho oo kuna dhamaysta caafimaad iyo farxad insha allahu tacaala. barnaamijkan waa barnaamij taxano ah, waa barnaamij sanooyinka u dambeeyey baxayey maxaayt midiyaha caadiga ka baxay telefishinada, wuxuuna ku wajahan yahay ama magaciisa la yihahdaa barnaamijka ramadaanka iyo caafimaadka. waxaana yani ujeedada ay tahay in bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ee saamiinta ah in ay helaan wacyigelin ku wajahan bishaas siday u dhaqmi lahaayeen dhanka caafimaadka iyo cuntada, si loo ilaalin lahaa caafimaadka cuntadana yani si u qaadan lahaa bacdama bilson ay tahay oo maalintii oo dhan la sooman yahay, isbedelna uu ku dhacayo raashinkii cuntada maalintii la qaadan jiray habeenkii u bedelmayso oo ah yani afurka iyo saxuurta, sidii ay yani ula macaamil lahaayeen muxuu ahayto raashinkii isbedelay waqtigiisii iyo raashinka ruuxiisa ay qaadan lahaayeen bacdama waqtiyadii caadiga ahaa uu cuntada cuni jiray qofkii uu isbedelay. marka waana wacyigelin, waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala wacyigelinta inay noqoto mid laga faaideysto insha allahu tacaala. marka haddii aan marka barnaamijkeena aan usoo noqono oo ramadaanka iyo caafimaadka, saan la ognahay bisha ramadaan waa bil caafimaad, waa bil barako, waa bil ilaahay ku manaystay ummadda muslimiinta ah ugu manaystay caafimaad maa sha allah. maxaa yeelay inay bil caafimaad tahay waxaa lagu ogaadaa, waxaa ogaaday culummada cilmi baarista samayso caafimaadka ah oo kuwa islaamka u badan, xataa kuwa aan islaamka ahayn waxay ogaadeen in soonka la soomo uu caafimaad yahay. cilmi baarisi ay sameeyeen taasay ku taliyeenba hadda dadka weliba aan yani caqiidada muslimkaan haysanin ay ku taliyeen weliba waxa la yidhaahdo intermittent fasting ama yani soonka lagogo-ana hala soomo ay leeyihiin dadka qaarkood markay u tagaan dhakhaatiirtaasaan sheegaya. marka waxay kutusinaysaa in xigmad weyn ay ku jirto ramadaanka yani ama soonka ama ramadaanka bishaas inuu caafimaadkaas xambaarsan yahay. marka yaanan kusii dheeraanin, waxaa waaye saan ognahay bacdamaa 11 bilood saan la soconno aan yani caloosha cuntada kusoo dhacaysay, cuntada waxay qabatintay maalintii yani quraac iyo qado iyo casho 3 waqti in cuntadii lagu rido oo la cuno. marka waxaa garan karaysaa markii ramadaanka uu bilaabmo, ramadaankii wuxuu keenayaa in maqribkii iyo habeenkii saxuurta inay noqoto. marka maalintii bacdamaa ay qabatintay calooshii ay leedahay waxa la yihahdaa capacity ama awood ama mug ay leedahay oo qabatimayso, qabatinkii ay qabatintay maalmaha ugu horeeyo ramadaanka dadka waxay u dareemaan xoogaa yani dareenkiisa waa dareemaan oo waxay arkayaan maaragtay xoogaa gaajadii dareemayaan, waxay dareemayaan calool gubasho. calool gubashadaas ma aha wixii la dhihi jiray gasritska ama disbabsiyada qaarka ah oo dadka yani ay ka sheegtaan cudurka ah, balse waxa waaye calooshii oo bana oo eber ah ayaa waxaa dhacayo waqtiyadii cuntada lagu ridi jiray soo xasuusanaysaa ama xasuusta maskaxda ay diraysaa. halkaas waxaa lasoo saarayaa dhacaan la yiraahdo gastric secretion oo oxidka caloosha u badan si uu yani dheebshiidkii yani raashinkii u shiido. marka calooshii oo banaan oo yani cuntadii ku jiray markaas gubashada maalmaha ugu horeeya caloosha la dareemo ayaan rabaa inaan sharxo inaysan cudur weyn ahayn maalmaha ugu horeeya ah, iyo gaajada maalmaha ugu horeeya la dareemo
waa capacitygii caloosha yani awoodeedii iyo ubarashada reflexigaas baxaya oo loo bartay waqtigii la cunayey xilligeedii markii la gaaro inuu qofkii dareemayo gaajo iyo calool gubasho ah taasna ay tahay yani waqtigii isbedelay oo maxaa yeele waqtigay qabatay markii lasii socdana waa isbedeli doona waqtiga waa la qabsanaysaa ama capacity muggeeda ahaan waa soo yaraanaya ama yani waqtigii reflexii bixayay oo yani waqtigii la xasuusanayay cuntada eedna waa isbedelaya maxaa yeelay midan dambe ayaa qabatankeeda la qaadanaya intaa markaa iraado waxaan usii gudbayaa marka saamiinta oo maxay sooma maalintii yani cuntadii waa ka soomeen weli maalmaha ugu horeeyo haddaan sheegaya gaajo badan buu dareemaya oo reflexooyinkii iyo muggii aan ka hadlayay capacity caloosha marka waxa ugu horeeya oo maalmaha ugu horeeyo weliba aan rabna inaan ka hadalno waxay tahay xilliga afurka ugu soo horeeyo wax la qaato marka waxaa loo baahan yahay in uu qofkii yani gaajada ka xog badinin ama baahida aysan ka xog badinin uusan ku dhicin cunto tiro badan leh oo yani aada u badan hilbo shiilan macmacaan badan buuskud maxaa la yidhaha sambuusi aada u tiro badan waxyaabaha laga digayo oo hadhow yani caafimaadka wax dhibaateyn karaayo waa raashinka noocaas ah sidii xadiidka kusoo arooray waxaa loo baahan yahay marka u horeyso timirta inuu qaato 3 xabo timirtasaan ognahay timirtu waxay leedahay xigmad kale ka dambeyso waxay ilaahay ku manaystay sokortii nooca milmaysay leedahay carbohydrateska ah waxay kaloo leedahay macdan oo weliba jirka awood siisa sida macdanta la yidhaha potassiumka iyo magnesiumka waxay kaloo leedahay fiber ama qolof oo caloosha yani runta u fiican calooshana jilcisa marka waxaas dhan ilaahay ku manaystay marka yani sidii xadiidka uu kusoo arooray nabigeena salawatullahi caleyh waxaa roon yani in loo hormariyo la isticmaalo kadibna biyo badan lama rabo in caloosha la kiilo biyaha hadhow bay noqon doonaan afurka kadib ilaa iyo qofka saxuurta ama uu ka jiiftee laakiin waxaa loo baahan yahay biyo caadiya inuu qaato ama fruits inuu qaato wuxuu kaloo qaadon caloosha la kiilayn dabcan iyo cuntadiiyo qiyaas loo qaato waxyaabahan aada u shiilan waxyaabaha baruurta leh waxyaabaha spiciga basbaaska leh waxyaabahan subaga badan in la iska ilaaliyo hilbo baruur badan dadka cunteynaya ama xalwiyaad macmacaan oo caloosha gaajadii in la buuxiyo caloosha in la kiilaya laga fikirin kaliya ha laga fikiro dhanka caafimaadka ha laga fikiro cunto waxaa la rabaa weliba macquul ahna in la qaato taa markaa qaato ama suubkii ha noqdo ama maraqii ha noqdo ama waxyaabihii kale boorshkii waxyaabahaas yar in markaas lasii qaato kadib markaa cunto yaroo isku dheeli tiran oo noocyadeeda kala duwan leh qofkii heli karaya ayaa ilaahay siistay ayaa loo baahan yahay ama bariis leh ama cadhilib leh ama muxuu ahayto fruitski leh ama qudaarti leh ayaa loo baahan yahay kadib inuu qofkii qaato taas markay dhacdo waxaa waaye biyihii kadib u bilaaban doona biyaha ugu qaata lakiin biyaha rasmiga waxaa loo baahan yahay markastaan ka digaynaa biyo badan in la isticmaalo hadhow arki doona dhibaatooyinka ay keenaysa hadii biyaha qaadashadooda ay yaraadaan bacdamaa weliba maalinta aan biyo la qaadanayn habeenkii baa la rabaa compensationkaas in la buuxiyo arintaas maxaa yeele haddii kale hadhow aan arki doonaa koleyta waxyaabaha keenaya haddii biyaha ay yaraadaan marka intaas waxa waaye waxyaabaha muxuu ahayto over eatingka ah cuntada aada loogu tartarago iyo waxyaabaha aada macmacaanka badan leh iyo markasta waa ka digayn haddii noqon lahayd muxuu ahayto afurka iyo gaar ahaan weliba saxuurta intaa markaan iraado dabcan wuxuu tegi doonaa qofkii xoogaa yar waxaa la rabaa inuu socod yar sameeyo kadib wuxuu aadayaa saxuurtii u aadayaa saxuurta marka uu yani saxuurta waxaa uu tegayaa salaatu taraawiixda salaatu taraawiixda waxaa waaye xikmad weyn baa ku jirta xikmadda ku jirta maxay tahay xikmadda ku jirta waa yacni raashinkii lasoo qaatay ayay culayskiisa yareynaysaa bacdamaa dheefshiidkii yani uu yani falgalayo dhaqdhaqaaqaas exerciseka ahna yani xikmadda ku jirta waxaa waaye cibaado ka sokow waxaa waaye xikmad oo rabbaaniyo caafimaadka ah ayay xambaarsan tahay maxaa yeele qofka markuu salaadaha soo dukado waa dabcayaa dheefshiidkiina falgal buu samaynayaa asoo dabco sida qof aada usoo socdoo kale ah ayuu noqonaya marka intaas waxaan rabaa inaan yani uga digo
ummadeena muslimiinta ah inay ku bilowdaan arrimaha haddaan soo sheegnay afurka inuusan ka xoog badin waxyaabaha haddaan sheegaynay inay yacni biyahana mar dambe ay bilaabaan ilaa sacuurta ay qaataan waxyaabaha aan sheegnay raashiinka gaar ahaan weliba waxaa arkaysaa dad macmacaan iyo waxyaaba xalwiyaad ah maya absolutely waxaa waaye waa la iska ilaalinayaa waxaan u rajaynayaa muxuu ahayto ummadeena saa'imiinta ah oo muslimiinta soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa kuwii ku bilowda yacni soonkooda ramadaankooda caafimaad bartamihiisana caafimaad kusii dhamaysta akhritaankiisana yani kusoo gabagabaysto caafimaad buuxa in sha allahu tacaala xalqadeyna caawa halkaasaan ku ekanaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmat ullaahi